مدن جمال حسن وكسر وين وانا midda kale arrimahan arrimo siyaasadeed ma aha inagu haddaan nahay jaaliyadda ku nool Kenya waxaan nasiib u yeelanay inaan noqono jaaliyadda kaliya ee ku nool waddanka dibaddiisa ee wada tashiga wax laga siiyo marka runtii arrintan waa arrin aad weyn waan ugu mahadnaqaynaa dowladda ay dhammaan soo qabanqaabiyey in ay Nairobi noogu yimaadaan oo ayna siiyaan fursadda fikraddeena ku dhiibanayno waxaan u moodaa waa muhiim arrinkaas inaan isla fahamno oo aanan loo qaadanin in ma aragtay waa loo diiwan galinayo adigana kaaga ku tarsanaysa إن شاء الله. حكومة فدرالك الصومالية waxay go'aansatay iyadoo la kaashanaysa qaybaha kala duwan ee maamulada dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwanba in la geliyo wada tashi qaabkii lagu dooran lahaa baarlamaanka cusub ee 2016 wixii ka dambeeyay taasoo maantana fursad aad u hesheen hataa tiin dadka ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi inaad wada tashiga qayb aad ka noqotaan fikirkiina iyo ra'yigiina waa idin fasiri doona afar qaybood ay u kala bixi doona laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaad taladiina ka qaadataan dowladana waxay fursad idin siinaysaa inaad ra'yigiina ka dhiibataan iyadana idinku qoran buwaagta aan hadda idin siinay af Soomaali iyo Ingiriis labadaba ku qoran waxa kale la soo saas bishii toddobaad ee sanadkan gudihiisa Muqdisho lagu kulmay baadi tilmaameedkaas dhaqan galkiisa sidoo kale runtii annaga fursad weyn bay noo tahay anoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalka Soomaaliya magaca dowlad goboleedyada iyo xubnaha guddiga labada qaybood ka kooban iyo kan maartay madaxda sare dowladaba waxaan aad ugu faraxsanahay idinku mahadcelinaynaa sidii aad uga qayb gasheen barnaamijkan aroortii hore ilaa iyo buuq la'aantii uu ku dhamaaday sida maartay wanaagga ku jira aad qaybaha kala duwan aad uga doodeen ra'yigiinana aad u soo gaarsiiseen annaga muhiimadaydu ma ahayn inaan idin kala qayb galno barnaamijka laakiin waxay ahayd muhiimadeena inaan fursad idin siino maadaama ay saas tahay qodobada kala tira la waayo shacabka u dhawaan kara nidaamka u dhaweynaya shacabka degmooyinku masjidda sida loo sheegay tira ahaan dadka ku nool sharci qeexaya